بسم الله الرحمن الرحيم waxaan kusoo gudjirnay casharadeenna ahaa contraception waxaan kusoo hadalnay 1 iyo 2 maanta waxaan ka hadli doonaa 3 si guud ayaan uga soo hadalnay contraception muxuu yahay meeqa loo qeybinaa methods maxay kala duwan yihiin mid walba waxaan soo taabanay waxaan kusoo hadalnay ugu muhiimsanaa number 1 iyo number 2 hadda waxaan dhimay 3 iyo 4 classmate dib ugu laabo waxaan kusoo hadalnay natural family planning ama loo yaqaano physiological ama mataqaana daawo isticmaal inay normal contraception loo sameeyo number labo waxaan dhahnay mechanical loo soo dhameeyo saddexaad waxaan ka hadli doonaa hadduu ilaahay yiraahdo hormonal marka laga hadlaayo hormonal methodka waxa waaye wuxuu noqon karaa kaniini oo loo yaqaano oral contraceptiveska wuxuu noqon karaa injection wuxuu noqon karaa anso mifan marka lagu erey hormonal marka not only kaniini yani wuxuu noqon karaa number 2 oral yani waxaan number 2 oral kaniiniga uu noqon doonaa kaniini asal dhowr nooc yar oo doon arki doono number labo injection ahaan cirbad daawo loo sii karaa hormoonka injection lagu sii karaa number 3 waxaan leenahay implant ama implanon yani in qofka mataqaanaa loo geliyo baashi garabka loo gelinayo waxaa ku jira hormoon vaginal ring iyada sama yani iyadoo vaginal ring yar jiro saas wareegsan oo waxaa ku jira iyadana maadada estrogen iyo progesterone anso waxaan hormoonka marka maqsmadka ku soo boodin kaliya kaliya wax dhuma hormonal waxaa jirto xataa waxaa jirta iyada hormoon aan saan sheegay sama intrauterine دفعت ولا يقان IUS واتكلم intrauterine laba u qeybinayna midna waa hormonal midna waa non hormonal hormonal waxa loo yaqaan IUS waqtigan aad muu laabanayna taas laakiin inta kale waa dhiman ayaan dhameystirayna idan best asfar waxa lagu gaado taxanaad best asfar erayga iska calaamaday meeshaan oo calaamaday all hormonal ama ha noqdo injection ama ha noqdo kaniini wuxuu rabaa ha noqdo waxa waaye not reduce yani ma hoos uma dhigaan sexual transmitted disease عكس waxay ku tahay gondab sama gondab waxaan moment kaliya oo sameeynay prevention ku sameeynay sexual yani taxan lagu gaado best asarka iska fiiri no hormonal ma jiro hormon ama noqdo injection ama noqdo implant ama noqdo kaniini oo loo isticmaalo ma jirto mataqaana no hormonal method to reduce the chance of mataqaana sexual transmitted disease haddaan ku baahantiin koowaad waxa loo yaqaan waa kaniini waxa la lahaa compound kuna waxa markii laba nooc ka noqon doona midna waa compound oo ah laba ku kooban yahay compound waxa laba estrogen iyo wuxuu kooban yahay progesterone kaniini koowaad waa kaniini labaad arki doona oo only progesterone hada kaniini koowaad bilowna waxa la lahaa combined pills oo ah estrogen progesterone ku kooban yahay waa ka ugu badan the most common type ugu badan hadda la isticmaalo asaga waa kan compound ka waay tan wuxuu kooban yahay laba hormoon saada ku sheegay estrogen and progesterone kayo ku kooban laakiin wuxuu u baahan yahay laga qaado full history yani full history laga qaado maxay loo arki doonaa baanada qaar not suitable yani loo isticmaalo arki doonaa contraindication soo leeyahay dadka qaar loo isticmaali karo contraindication marka baana history fiican ka qaada sabab hubino inay qofkan uusan ugu jirin riski ama uusan ugu jirin dhib uu keenin kaniini hormoon kala qaado doono sida arki doonto high blood pressure kale dadka mataqaana circulatory disease ka qabo kale diabetes mellitus arki doonto more than 35 years old who smoker waxaan arki doonaa waxa la contraindication dad overweight oo kale waxaan waa hal doon waxa taa kordhicin laakiin aan fahanto oo compound loo baahan yahay mataqaana inuu combine u baahan yahay laga qaado full history laga qaado ayla full history maxay waxaan some patient wuxuu jira contraindication ya contraindication uu jiro waa noo soo socota waxba ka hordhicin hadda fahan compound-ka inuu yahay the most common type sidoo kale aan loo isticmaali karin qof walba not suitable for any case waxa waa in laga qaado full history dadka qaar waxa la wuxuu ku yahay contraindication how to make inta xaq lagu weydiin karaa compound aan doctor aan sheegay waxa uu karaa how to make qaabka u shaqeeyaa waxa leedahay u shaqeeyaa number 2 halada number 2 wuxuu sameeynaa stop of ovulation ayuu joojina maxay loo ereyga waxa lagu siinaa FS waxa lagu siiyo compound wuxuu ka yahay estrogen iyo progesterone estrogen wuxuu sameeynaa marka negative feedback waxa la sama marka estrogen oo bato waa soo qaad physiology marka estrogen oo bato wuxuu sameeyaa negative feedback wuxuu tagaa pituitary gland-gi wuxuuna joojinaa in la FSH la soo deeynin maxay already taasoo hooyada pregnancy waxaan dhahnay hooyada markay pregnant tahay waxaan dhahnay waxa ka casal estrogenka ka casal wuxuu joojinaa in mataqaana sama estrogenka ka casal wuxuu joojinaa inaan la sameyn ovulation sama meeshii la waayo meel kale u raadin yani markii laga hadlayo waxaan dhahay hooyada pregnancy waxaan dhahnay estrogenka ka kacay wuxuu keenaa inuu la joojiyo ovulation la joojiyo tan sidoo kale aniga waxaan ku estrogen afkaasina kaniini ahaan ku siina this clinic wuxuu keenaa estrogen inuu bato markuu batana wuxuu sameeyaa negative feedback wuxuu joojinaa ovulation wuxuu ku sameeyaa suppression wuxuu joojinaa FSH inaan la soo deeynin mila socota progesterone kana sana xalan progesterone wuxuu joojinaa LH ka ayuu suppression ku sameeyaa number 2 hay number 2 waxaan leenahay thin ayuu wuxuu ka dhigaa uterine yani endometrium ayuu wuxuu ka dhigaa thin sama khafiif uu ka dhigaa maxay khafiif noqon waxaan leenahay
uteruska si in lagu sameeyo implantation shucuurka lagu sameysmo inuu thick noqdo aan maxay progesterone ayaa thick ka dhigaya sooma ka dhigaya so mataqaanaa uu noqdo marka waxaan leenahay dis marka yani inhibition maadaama ovulation oo la joojiyey progesterone la soo la siinayo oo ku filan inuu sameeyo thick ka dhigo marka waxaan leenahay intermediate wuxuu noqonaa thin حتى دي ovulation laga soo badbaad mechanism ovulation la joojiyo waayo kana celinayo implantation ma dhici karo maxay leeyahay uterus waa thin marka in soo uu sameeyo implantation waa thick noqda marka waxaan leeyahay ila socota number 3 waxaan leeyahay noqona thickness of the cervical mucus noqona thick ay noqona cervix waa kana thick oo noqona marka thick noqona maxay keenaysaa marka waxay joojinaysaa interfere spermihin oo aado ascend in spermish oo kor aado ayuu joojiyaa حاجة دي الوجي دكتور استجي بسم الله الرحمن الرحيم ده أصلها شيء فاهم ماذا حكوا أنت أوفري يوترس يسيرفكس يفكش قياس الدحمله يعني كومباوند يفكش قياس الدحمله وحالة ده أوفري يوترس أن سيرفكس أصلها إحنا مركب فهمت حفظه كده يقول صلاة مركب صدق عز حب قرن مركو أوفري نمبر لابا يوترس نمبر صدق سيرفكس كده يقول صلاة مركب أوفري محاولة وحالة ده إني وحسمين على ده هاي stop the ovulation وكمية لصوت ديما ovulation كجوجين stop the ovulation عليه لما الله يوترس محوك سمينها ثين أيوة كده خفيف أيوة هانا يوترس كثين مركب بلادش ما كده يعكر ماشي نمبر 6 يوترس سيرف كده ثك اللي هانا أيضا محولين هاي لسه على دكتور دوي لسه حاجة حالة هاي thickness of cervical mucus كاسو جوجين على سبيرمين سكر عادي كريم يوترس كانوا كده ثين implantation أو دوسن إدي كري implantation أو أنا بيروجو كسر قديم حلو أو كسر مسمى يعني أنا عارف fertilization وكده عارف فلوين تيوب كوسو دقة وسو وعيمان يوترس كي سو وسمى implantation معيش هو أبورم مركب implantation مركب ما دعي كراه يوترس كوا ثين سأكتر نور بحكي سو قاتل إنه يوترس ثك نقرأ محل بروجسترون أيها ثك دقة يعني طلع كم حالنا هاي enough not enough effectiveness الودي كده ما أهله والله هو 95 99 sorry 99 هذه لو قاتل ساعة صح لو استعمالات وحالتها هو 99 وهذه صح لو قاطو وسيدي لو ترى لو قاطو واحد ادفانتج عمليه بجديد حاجه ها عليه وهاي افكت حسامين xoog inta inuu mataqaano uterus oo pregnancy oo joojiyo waa cheap kan ka taxaba farmashi ka tagay nus dollar alga xaq raxmo ina nus dollar meel qaar $1 gal waa very cheap bishiilan halkaas dollar ku filan and easy to use وين ما علم بحنا إنه وش رح بحنا أختار بحنا ده حواي حبض يا معلم يلا حل يا معلم حلقة حبك الله هو easy to use سواء هو advantage ربي اللي تفرض على الدكتور فرق صلاة على هذا كذي كمان تيجي بسبوع كحي وحواي وأضي اسكت كان وحواي أنا قاضي والريفرسبل يعني ما كجوجينا البدل الماضي يعني سيد تقرأ أهم شيء فرق وصل عن هو very حالة هاي والربي ريفرسبل نمبر شن حالة هاي not related intercourse يعني واحد intercourse لما حرر يعني كذي ما له قد أماضي هجوج أما هم قنادين ديلو قاطع ديلي قاينا ما له حبة ذيك اللقيسان عقوق كمية هي لاتين زيت حبة ما له حبة ذيك اللقيسان كو قرن كو لاتين كو حبة كو لاتين كو ده وحواي وهرمونة كو لاتين زيت حقوق جت تضرب حبة ديرادة أو أما تقنا أنا هرمونة ده ترى واحدة بدهم يعني كلام كو داير ديلو فيديو compound هي هنا فهمتي نمبر لا بديلو فيديو ده ميكانيزم إلى شيء كتوصل عن ميكانيزم كي نمبر 6 ديلو فيديو advantage كدكتور وأنا شيء كتا advantage كمال حاجة كبتها هلا بلابين high effective very cheap easy to use rapidly reversible هروك صلاة على rapidly reversible infertility وصلاة على reversible على وضع إني مركي جيني الجوج إنه هري أور قاعد كتو يعني أور كي أنك جوجينا هاي ومتدير قاعدنا ما هروك صلاة معنا يبقى rapidly reversible advantage هلوك سجرناي وحنا ده وحنا له استعمال هذا هاي non contraceptive benefit وحوليها لازم فائدون كلام تحاول على نسكول الودي هذا what is the يعني compound يعني compound oral contraceptive benefit كيس فائدة benefit أولية هاي أنا نهم contraception أما حاله إرجع لو حاله كله ديكرا other uses كلام لي واحد الله استعمال مجرى other uses كذا شيء كتقول ها على نمبر كو نمبر لبو نمبر 6 نمبر 4 نمبر 5 هسه تحريد الفيديو لو قبل الودي كرا الودي كرا advantage ما هو شرح لي حبة كده جالس أنا أقصد على ده ولا هاي non contraceptive benefits أولية أما non contraceptive uses كله استعمالها يتحقق على الودي كرا what is the compound contraceptive pills ك benefit أولية محيطة أم other uses كوكرا وحاجة الله استعمال كله ده نمبر 2 decrease the menstrual irregularity فهذا irregularity هاي والله سينا وكصحة irregularity وكصحة على ده هاي decrease the menstrual irregularity يعني هذا هذا منورجي هذا كله وكصحة ديجري ده كله هاي مركب منورجي هاي ديج بدن هذا كبحة ديج بدن أنيمي ممكن كم حالة كوركش أنيمي ده حرام وصحة على ده يعني هو صعب ديج علينا ديج بحال جوجينا وفيلش جوجينا تمام compound pills فحنا نكله حلوة يسمونها pre menstrual
syndrome waxa la dhahay premenstrual syndrome iyo period ka socdo dysmenorrhea-dana wuu joojinaa xanuunkii la xiriira waxaa leedahay period waxaa leedahay pain during the period hoos u dhiga iyo sidoo kale waxaa leedahay wuxuu yareynaa leedahay premenstrual haddii hoodan loo isticmaalo waxaa loo isticmaali karaa non contraceptive periods mifan protection wuxuu yareynaa against the both ovarian and endometrial cancer inuu qofka hoodan ku dhaco ovarian iyo endometrial cancerka riski ah wuu yareynaa mifan faa'iido kale waa برضه حالنا هاي وحلو كله استعمال كرا تريد ovarian cyst إن ovarian cyst اللي بدأ ويكرا ovarian cancer إسكا endometriosis إسكا طبعا هنشوف كل حالنا وعلى هذا improve the mild acne طبعا حلو بدل مياه دي ودي ده other uses اللي كرا فكلام الله استعمال أنا نهم contraception صح وهذا حالنا تفرجش قدامه contraception اللي وقفت يصاد ده تونيك فمشي يستوى نت نكوينا وعلى عم برا ميرا لقى كليني لو استعمالها متقنا المها لو جام ما يا نو حسنا وحاول هذا مركب وش قريته على ذنين فرمشيشته على من بوع اسكي هاي وحو يقان او كلي وحو يقان لو استعمال او كلي كونترسبشن markuu ciisa burkii uu sheegay dhig u siino daawadan qaado laana shaqo khalan kale waxa laga yaabaa inay kuulay ma taaydo ka caawin irregular cycle uu sax cycle ku sax pain of period kii oo ka saxa sama waxaad markaa xaaladahay aad benefit kala jiro laakiin ninkan farmashista laga yaabaa inuu yaqaan oo kaliya in loo isticmaalo contraception adii laakiin akhtar ama taqaana in loo isticmaalo contraception loo isticmaalo other uses kale oo jiro faa'iidooyin kale oo leeyahay ay jirto ay kamid tahay inuu lagu yareeyo menorrhagia dhiig badan oo baxay menorrhagia laga yareeyo pain ku cycle-kii ovarian cyst waxa laga yaabaa ovariga wax ku san cystiga aydan hoos u dhiga ovarian cyst waa loo isticmaalaa marka waxa laga yaabaa ovarian cyst uu qorta tiranaaya daawadan qaado farmashista boobo u yiraahdo contraception way urna aad martid ma adi oo iskale muddo adi ma fahmaa waxa farahay oo la galma farmashista wala daawada inuu muddo siiyo waxa inuu wax sharax ma aado sharaxada dhaqtar iskale muddo adi ya disadvantage alada marka faa'iido disadvantage ma leeyahay hadii lagu diiwayo waxa disadvantage xaga waxa weydii karaa dareenka ma waxa laga weydii karaa mechanism of action kiisa advantage kiisa disadvantage kiisa iyo other uses ka ama waxa loo yaqaano other benefit aan ahayn contraception loo isticmaali karaa waa sharxi kartaa sooma wabillahi tawfiiq walahi taag waxaan rabaa inaan madax ka jabiso insha Allah disadvantage ma leeyahay not protection waa advantage xumo inuu sida igu hurtay inuu sexual transmission yaray kara leedahay sida condom ninka ducaqado ah sexual transmission oo yareena contraceptive iyo uu baaga joojina mas mid dibka kale advantage kale waxa leedahay u baahan yahay daily loo qaato waa inuu soo xasuusto maalin walba waa hilmaama arwaa hilmaame arkinig waa hilmaam dib badana ya waa hilmaam waa disadvantage la doctor hadii lagu diiyo wuxuu kale keeni karaa xalooyinka thromboembolic yani hooyada haday qabtay yani thrombosis yani strategic wuxuu ziyaadina soo viscosity of red blood cells waxa leena wuxuu kale sameeyay register wuxuu sameeyay stasis waxana loo waxay ziyaadina leena risk of thromboembolism disease milasan doctor disadvantage number 2 waxa ka dhigaysa waxa leedahay يعني not protected sexual autonomy وش أكتر كأنا فهمتها واحد نمبر لو حالة هاي must be taken daily وعبان من زوجته must be daily taken وعلى كده قاطه وواحد في عمه وتسأل ماذا وهالمان كتاب مثلا أنثر من بوري جزء كين كتاب communication بليها communication بليها حكمية هذا إنه وصل يقول lactation ده سو هذا لما استعمال lactating لما استعمال كان ليه compound لما استعمال هذا lactating هي and سيدا حالنا هاي amenorrhea أيو كين كرا wuxuu thrombosis kizama inuu xinjirada thrombosis ama thromboembolic disease keeni kara migraine headache hada qato migraine waxa laga ku kiciyo migraine headache inuu sababo migraine headache waxa ku qaadan inta mid saxba hadii waqti naago hanago la waqti u socday gall bladder stone hadii qabto kale ayna waxa leena uu ziyaadina yani pain iyo soo kale breast cancer waa complication iska uu keeni karo meel sax doctor cancer kala dhahay ovarian iyo endometrium uu yareena risk inuu dhaco ya cancer ka breast uu ziyaadina meel sax doctor قدم فين contraindication مليه ها contraindication كله وحاولنا هاي most لو حالنا contraindication وحاول قيمنا لبا قيبات وحاول قيمنا نمبر 2 وحالنا هاي إنه هاي relative وحاول إشكال relative أما لو يقارنوا group 3 يعني ما لو يجوا عقب بس group 1 E 2 E 3 E 4 مركز 3 وحالنا هو relative فعلا وحاول حدي واحد كان اللي كريم وحاول إن لا يوفق هذا فعلا يعني نمبر 2 حالنا هو hypertension وهذا قبته كله hypertension وصيح على وزيادة compound لو ما يستعمله وعقب أنا سمعت إن العبر التهان يديك لقال صعود بهانتاج هذه هو قبته history of thromboembolism disease كله thromboembolism حالنا أيضا مو استعماله نو على استراتيجي حالنا نوع زيادة blood clotting كي أي استراتيجي حالنا أيوب بدلنا سيدا coagulation كي وحالنا هاي متقنا زيادة من induce thromboembolism بس حالنا بس only thromboembolism قبل الله ما استعماله كده هو قبته لكن قبل كل برا السوق الله ما استعماله كده
diabetic mellitus lama isticmaali karo hooyada qabta depression anuu depression waxyaabo keenaa kamid ah migraine headache iyo hooyada lactating ayada lama sii karo anuu hooyada lactating caanu ka yarayna cunugna canuga meel cilo kasoo dhaca caana laana ku dhacay smokerska hooyada ah oo na ka weyn 35 years old ayada waxaan waa relative contraindication hadii lagu weydiiyo contraindication waxaa isku qabo hadii lagu weydiiyo hadii lagu dhaana daarta kala qaado waxaa relative and absolute maxaa waaye waa 4 category 4 waxaan waa 4 lama isticmaali karo yani waxaan waa absolute kuna nihai uma isticmaali kartid ka fogo kii laakiin waa relative wallahi waa waqti laga maarmi karo waqti ma fiican kan laakiin absolute waxa waaye lama isticmaali karo number wasiwada number 9 waxa waaye xagga waxaan soo qaaday 8 soma dadka qaba chronic heart disease يعني heart problem qaba yani congenital heart disease valvular disease waxa marka xalana wuxuu ziyaadinaa thromboembolism ziyaadinaa qofkan ku dhac thromboembolic disease ku ziyaadinaa dadka qaba breast cancer lama isticmaali karo dadka qaba liver adenoma ama liver cancer ama qaba active liver disease dadka hepatitis B ama C qaba active liver disease qaba hay ma sii karto qofka qaba active liver disease ama liver adenoma ama liver carcinoma lama sii karo haddii hooyadan tahay non cause of thromboembolic status-ka ay qabto sidoo kale hooyadan waxay qabtaa congenital ama acquired thrombophilia hooyada aslan coagulation barbarkeeda dhibka jiraaba yani waxay qabtaa congenital ama acquired thrombophilia markii qabta thrombophilia yani waxaan leeyahay thrombosis waxay risk ugu jirtaa thromboembolic disease markaydana waxaan leeyahay u isticmaal haddii qabta past history of ischemic stroke hadda ku dhacay ama ay transient noqdo attack qofka hore qabta ischemic heart stroke mataqaana ama ay hore ugu dhacdo waxa la yiraahdaa cerebral hemorrhage ama ischemic stroke hadda ku dhaca waxaa la contraindication pregnancy waa soo contraindication baba sii gato pregnancy ah hadii lagu digo contraindication waxa waaye 14 waxa isku qaba darto kururuc trawraxi khiyaabe haddii galana kala qayb soo xalada nin waa relative min waa absolute maxaa loo man waa karo relative wallahi waa khatar waa lama isticmaali karo dii leeli karo nooc kale ila socota doctor سؤال اللي قلت لكم حاول يقولها بيلز كده قف قدامنا محوسة منها كليني جنات إيه المنطقة وكوتي من اختراعها بعبع يقول هذا نكان اخترع وركال ولو صرت عاد من سمر يبرتها فالكالة هي يقول له وركليني جه المام حان سميها ها مين انتها مركو حالتها هاي if هذا one بيلز إيه المنطقة وحلينا ويقالنا مركز واحد صح مركز واحد يصير صلاة مركز صلاة فرات مركز واحد تكون مثلا مركز كليني جه أكو ضعف مركز وركلا كل حاجة نحلي جسكو قال هذا كان أهل المنطقة حتى هذا إسلام مركز واحد يستو كلام waxaa qaadaysa xilliga soo qaadaysa ilaa xilliga saacad kale inaad xilliga soo qaadata kala baad hatta marka laba xabad ku badan if two pills mis laba xabad leeyahay ee ka badan yani hada laba aysan waa sidii kor oo ku xusan oo markaas waxa xustaa isticmaalka kala xilliga soo isticmaalay zaid extra aragna wajan extra precaution backup ilaa sameeyo maxaa kamid oo kale يعني إن استعمال شكل كنا كسر أنا الأسبوع هلاقي كرو كلينيك لو ما لهم كمان أنا أورنا على تختار ويجي تاي روح علينا ون ويجي حاسمين سالنا هاي أما أنتوا كده مين هاي ساكل أنت كده من استعمال بروتكشن كلا أو قبل استعمال أما نيكها وتجيب بقى حياة لا بحبها لا تختار بقى لكن شيء حلي يسوق علينا حلي يسوق على الصور وهلا لكن الحبدوي وعادي ما دام كيكوات أنا كل شيء قلنا إنه ياه كونترا إنديكيشن بدنا أوليها نحكي كلا كان ما دام لينو كلينيك يعني ليه كومباوند كمان هرقبة هبل لو ما استعمال كره هبل لو ما استعمال وانا وليسين مركو إلا هلا ميت كلا استعمال كره وذاك هذا ها مركو حلقة على قناة بروجسترون أونلي بيلز ميت كوب أونلي بروجسترون أنا لهم با وحلقة على قناة ميني بيلز الله وأونلي بروجسترون ما ولا هم با ما لهن الله إلهكم مسلم جديد ما لهن ما تقنا استرجيكم بدكتور سيدا كومباين كو كلام معها يعني أونلي حالنا هاي وحكون كوي هال هرمون sidoo kale waxaan leenahay mechanism of action kiisa wal gudi kara ayadana mechanism of action waxaan leenahay waa kiyo kale waa number 2 iyo number 2 sorry number 2 iska masax waxaan leenahay number 3 number 2 iyo number 3 number 2 muxuu ahaa yani waxaan leenahay waxaan ka dhiganahay thin of the uterus sama iyo number 3 wuxuu ahaanay thick of the cervical waxaan leenahay wuxuu ku kala uterus ki cervix ka badana inhibition ma ku sameeyay ovulation number 2 ka xadfay waxa ka wada dhaxeeyo number 2 iyo number 3 kaas number 2 ayuu leeyahay oo inuu ovulation joojinayo laakiin number 2 iyo 3 way ka wada dhaxaysaa marka waxa leedahay ninkan laba xaq waa leedahay mechanism uteruska iyo cervix-ka tiyo kala waxa tahay loo min aniga kiyo kala la ku cisho bis ovulation ma joojinayo laakiin wuxuu joojinayo uterus-kiina wuxuu ka dhigaa thin cervix-ka wuxuu ka dhigaa thick of the cervix-ka kii xifdi كل 3 حبة حفظ ميجرد حفظي هذا كومباوند يهني 3 شيء هذا أول بروجسترون يهني نمبر كوس كتير ترى وفيلوجيك أسيجا متقنا شاوك ما نكان متكان تعقبها أتفادج مليه الودي كرا سما سيو كيو كله ها
kan wuxuu ugu sii duwan yahay advantage-kiisa waxaa loo isticmaali karaa leedahay qof walba control magac wixii taxe way afartii xabdo aan ku leeyahay waa control indication taxe waxaa leedahay this type of pills waa good wuxuu u yahay for women taasoo breastfeeding sama naas kooyin nooca cunugin wujinaysaa waa naag weyn smoker dhiig sigaari caba waa cardiovascular risk ay qabtaa diabetes mellitus ay qabtaa sama wixii ninka ducaqabaha aan loo isticmaali karin dhama u isticmaalaysaa ma fahanta adiga waxaa leedahay marka advantage waxaa leedahay in loo isticmaali karo wixii aan loo isticmaali jirin compound ama soo ku tix not waxaa laga fahan we use the patient of breast cancer we can use the patient of liver cancer we can use the patient of hypertension and migraine disease headache wixna oo tixi waxaa leedahay we can use ada inta dhan u isticmaali karnaa leedahay aan loo isticmaali karin ninka compound loo diiday number 2 faa'iidada labaad waxaa leedahay taas waay moogtahay number 2 waxaa leedahay faa'iidada labaad waxaa leedahay it can be held the premenstrual syndrome sama iyo painful period iyo lamid yahay yani hooyada qabta premenstrual syndrome uu ka daaweynaa hooyada waa loo isticmaali karaa iyo hooyada qabta duca qabtada ahayd oo painful of period dysmenorrhea so painful of cycle ka qabta idan waa loo isticmaali karaa ila socota disadvantage ma leeyahay hada advantage waa fahanto in loo isticmaali karo number 2 aa leedahay wixii taxay ninkii xagga ahaa wixii contraindication ku ahaa ayaa kan u isticmaalay intii soo taxay kugu cilmi anig kii soo qaaday contraindicationadoodii kan inta waxa wareegta advantage in loo isticmaali karo number 2 disadvantage ka labaad waxaa leedahay sure advantage disadvantage waxaa leedahay waa high failure rate ceebtiisu intaas waay marka laba badhigo compound waa high oo ka badan yahay failure rate oo ka badan yahay marka laba badhigo compound sidoo kale wuxuu kala ziyaadi karaa wax loo yaqaano ectopic pregnancy waa ectopic pregnancy uu ziyaadina maxaa yeelay yani isaga tube-ka wuxuu ku sameeyaa waxa la dhahaa stage ku sameeyaa tube-ka yani estrogen-ka wuxuu ku sameeyaa wuxuu ziyaadiyaa motility of the fallopian tube progesterone-ka wuxuu hoos dhigaa motility of the fallopian tube marka motility of the fallopian tube marka dhacdo waxaa leenahay cunugii inuu ku sameeyo tube ku sameeyo ma soo dhaqaaqay motility-ga yaraanaya marka wuxuu ziyaadi karaa ectopic sidoo kale waxaa leenahay disadvantage waxaa kamid ah in must be taken same time wuxuu u baahan yahay in xilligii la qaato advantage waxaa leedahay marka waxaa leedahay inuu mataqaana oo highly failure-kiisa uu ka badan yahay kan iyo inuu u baahan yahay kiyo kale isku mid ka yihiin leedahay wuxuu u baahan yahay in la qaato daily loo qaato oo la xasuusto u baahan yahay kala socda doctor effectiveness waxaa leenahay waa ka yareen waa 95 kiyo muxuu 99 oo soo mahay kana ka yar marka failure rate marka saas ugu badan yahay marka waxaa leenahay daily in loo qaato u baahan yahay same time loo qaato u baahan tahay mi fahantaa kii waxaan soo baxnay kaniinigi hay kaniinigi waxay soo baxnay number 2 iyo number 2 waxaan galinaa injection waxaa loo yaqaanaa depo-provera injection waxaa loo qaataa IM laga qaadaa every 3 months la qaataa waxba waqti badan iska lumin inta la qaato ergaas way fahan injection inay tahay IM laga qaato 3 bilood in mar la qaadanayo marka qaabkii u shaqeysaa hormoonka aydan hormoonka soo kordhi faa'iido maxaa inay tahay long acting inay tahay yani long acting inay tahay in waqti dheer la qaadan karo kaniinigu kala ma aha maadaama in xasuusto u baahnaa hadaa hilmaanto biri ur ay qaadi karto miigeeda functions maxaa marka waxaa leenahay jirka cirbada gele markii hormoonka jirka lagu soo deena progesterone jirka lagu soo deena wuxuu joojinaa marka xanaan marka jirka lagu soo deena ovulation iyo joojinaa laakiin the primary functions maxaa waaye wuxuu sabab leenahay an ovulation in ovulation la joojiyo aan biyo saameyn kara calaamada cervix mucus kan wuxuu ka dhigaa leenahay thick wuxuu la mid yahay compound marka waxaa leenahay miigeeda functions maxaa leenahay inhibition of ovulation and thick of the cervical mucus injection waxaan leeyahay mushkiladeed maxaa waa aydan faa'iido kale lahaan karto waxay yara kartaa haddii hooyada qabto kale painful of period ama ay qabtay heavy cycle aydan waxaan kana loo isticmaali karaa diswatra cirbadii waxaa loo yaqaan depo-provera injection allah ya advantage ma leedahay advantage ka leedahay waxa waayaba unlike the pills ma lamid ah sidii kaniiniyadii haye uma baana xasuusa iyo kaniiniga waa hilmaamay doctore xalka igu xunay dhahay waxaad ku dhiimayso laanu waxa waa cirbadaha dhab lagu siiyay 3 bilood ka maqnaanay mi fahantaa adiga yani sidii kaniiniga oo baahnaan in la xasuusto ma aha sidoo kale waxaa leenahay aydan disadvantage ma leedahay yes disadvantage ka leedahay waxaa leenahay period-ka become irregular ka dhigi kartaa and maybe stop irregular ka dhigi kartaa oo joojin kartaa sidoo kale aydan waxay ay delay ku sameyn kartaa ka delay fertility yani waxa laga yaabaa inay ku qaato hooyada 1 year inay u soo laabato kuwii hore laakiin waxay ahayd rapidly yani waxay ahayd markii kaniiniga ajoojis hore oo ka qaadaysaa kan laakiin waxaa leenahay يعني fertility waxaa leenahay way soo tahay delay of the fertility waxay u baahanaysaa time inay soo laabato marka cirbada laga joojiyo inay u soo laabato waxaa waqti qaaday marka waxaa delay the fertility cirbada halka cilada ay leedahay taas waaye cirbada markii la siiyo 3 bilood ay hadinay shaqeyso ma waxaa laga yaabaa sanad iyo bar 2 sano inay hooyada dib u soo u qaado ma fahantaa adiga halka cilada leedahay taas waaye efforts waxaa laga maanaa trend disadvantage ma waxaa leedahay number 2 2 iyo 3 ko waxa uu muhiimsan in delay the fertility la dib u dhigay delay the fertility waxaan hadii barofeeraha taqaana waay hay isku xidhi badan yaawamay yani birth control given one yani every 3 months ka qaadanaysa
the effective 199 uma baahno not daily pills to remember uma baahno ma xasuusto sama ina xasuusto uma baahnid aan soo this is dibo borovera this dibo borovera and the contraceptive pills ka ayaan saas uga soo angelina number 2 waxaan soo fahnay compound waxa kale mar laba waxaan soo fahnay ninka la leeyahay compound soo fahnay kadib waxaan soo fahnay only progesterone waxaan soo fahnay injection haddana waxaan fahnay hal implant cirbadan waxaan ku gelinaa dhabar garabka loo gelinaa mi fahanad adiga waa cibaara an small stick mujeda waa small stick yar waaye shariixa dhahan adiga af carabi shariixa wax yar oo dhalin yar camal meesha lagu soo tago waxaa ku jira hormoon ku jira progesterone oo dhahaayo waxaa la gelinaa mostly and under the skin sama waa subdermal the hormone waxaa la slowly release jirka si tartiib lagu soo deena jirkaas ku jira cirbaashan cirbadan waxayna ku jiraysaa jirka 30 sano cirbad maatan waa implant garabka loo gelin waa lagu soo dhex tagaa meesha hadhow markii labada laga soo bixina it work primary waxaa leenahay ovulation inhibition shaqadiisu maxay tahay u muhiimsan primary yani injectionka iyo ninka la leeyahay implanonka ama implant labadu waxay ku waxaan waa inhibition of ovulation la primary shaqadu waxa inhibition of mataqaan ovulation in joojiyo hada socda doctor muslim waxaa leenahay progesterone waxaa lagu soo dinaa slowly jirka lagu soo dinaa maalintii waxay garabka kugu jirta baashi garabka kugu jiraysaa garabka markii kugu jirto 25 ilaa 70 microgram ayay daily usoo deynaysaa it is a highly effective and at least waxay u baahan tahay 3 year loo sheegaysaa garabka loo gelina 3 sano ugu jiraysaa hadday bacda sanad kadib ama 6 bil kadib tiraahdo doctor mar laga bixina waa iimaan waa laga bixina soo ma sida cirbada ma cirbada laakiin hadday markuu gasho laga bixi karo waa cirbad waa lagu show talaki waa garabka lagu gelinaayo maalinta tiraahdo mar waa laga bixi karaa mi fahanad adiga waatana ilaahay kuma samadiida waatana waa la soo waa loo geliya mujida waatana fiiri meeshaas loo geliya this is for implant meesha ugu jiraysaa muddo 3 sano ah maalinta yarata doctor laga bixina waa laga soo bixina mi fahanad allahu akbar implanton ala ama implant فهمت implant ama implanton waa number 4 advantage kale maxay tahay advantage kale leedahay doctor number 2 waxa leedahay long action doctor inaga xifdin adag idig waxaan xifdsan in Soomaalidina xifdin waxa kida wax fahan dhakhtar wax fahansan noqo hanu dhakhtar xifdi waxa leedahay faa'iido leedahay maxay tahay fahan ana baasha meesha ugu jirta 3 sano ku jiraan wada maxaa waa faa'iido waa long acting sama ama long action ale waqti dheer ay qaadaysaa leedahay hooda ma baana maadro keen si waxa si sama maadro waxa leedahay waa jirkaas ugu jiraysaa waa ka nasanay sidoo kale waxaa leenahay waa rapid reversible ana maanta ka bixiyo baash waa imaanay doctor iga bixiyo dhahay waa bixina dhaq qalin yar sidoo loo tan tish alada waa ka soo bixiso hore urka qaadi kartaa birri waxaan markaa waa rapidly reversible after remove markaan ka bixiyo hore urka soo qaadi kartaa ila shahaada doctor araga bishiga waxaa leedahay the implant are rapidly reversible inta kale waa sharaxaad ana ku daray after remove serumka of mataqaana progesterone levelka waxaa leenahay hoos u taga waxaan noqonaa after 4 days gudahood hoos ugu dagaa normal ma fahanad adiga disadvantage ma leedahay disadvantage keeda ma badno waxay keeni kartaa infection site meesha cirbadan ka gelinaayay ugu soo dhex tagaa infection keeni kartaa expulsion mana badno madana ma dhacdo inay meesha soo dhacdo kana ugu badan niyo doctor migration inay migration waxa intaan gelinin gacanta saas ee meesha tan gelinin waxa inay migration sameeyso inay meeshaas tagto araadisa dhul waay waa ma badno laakiin ayada migration way safray meeshana ku ogeed intay tagaysaa ya inta ka soo helaysaa dhow scarring meeshii xogaa yara scar usnaa xogaa dhaawac usnaa awir ma halak scarring ya period can become irregular yani irregular dhig kartaa heavy dhiig badan ay baa waxa noqon kartaa menorrhea la yimaado dhiig badan oo ka yimaado ama inuu ka istaa labada waa kuula ma kartaa doctor waxa wala aniga baasha la geliyo madasada dhiig yimaado waxa la caadi tarad dhiig kama marha waa caadi ama waxa laga doctor dhiig oo istaagi la yahay tara darad marka tara dhib keento laakiin hadduu ka istaa waxba dhigo ma laha mifan waxay keeni kartaa inuu dhiig ama bato ama yaraado inuu istaago menorrhea loo yaqaan wax dhigo ma laha inuu bato menorrhea waa laga daaweynaa as menorrhea u daaweynaa waatan cirbada qaabka loo gelina meesha u gelinta uu soo tagay waxa la implant waatan meesha uu soo dhex tagay waxa lagu soo dhex tagay waa waxaas yiniska waa waxaas kama lagu soo dhex tagay hadhow laga soo bixina u dambe waxa la dhahaalenahay waa vaginal ring waxa leena waxa waaye vaginal ring waa hormoon ku jiro sama hormoonka ku jiro marka waxa leena marka waa waatan vaginal ring waatan baarta vaginal ring waa kaasa waxaas waa mid wareegaas vaginal ring laba kana waa soo qabanaysa dhakhtarkii soo qabana waa u gelinaa tulul waxa vaginal loo dhaxgelinaa mi fahanad marka muxuu yahay waxa leenahay hormoon ku jiro progesterone iyo estrogen ku jiro asaga waa compound ana ku jiro estrogen and progesterone ku jiro effective 99% range waxa leenahay mostly gudaha la gelinaa vaginaha around the cervix actiisa la dhiga wax weyn ma yani waxay qaadanaysaa yani ring 3 weeks and then waxa leenahay waa laga soo bixinaa soo markuu cycle maama isku soo bixinaa waa loo gelin hadana way isku soo bixinaa this method waxa leenahay does not protect
the HIV sida ma qodobka ma iska ilaali waxa laga not to protect sexual إيفان وحبا وقتها كانوا بدل المويدين لكن إيفان اختراع سكتها قلت هذه المويدين أنا فاهم كذا قف واحد كلمة ترى الرينج وحوي أنا ديك الرينج وحلا فجأنا الرينج وعقوبة استراتيجية بريجسترا وحلا قلنا إنسايد أو فجأنا مركز ستة أسبوع وجود أسبوع وكاي ما سايكل ولا قصة بحنا هذول ميت أسبوع قشنا سا إلى ساعة تكتور وآخرا أنت حنصل من هذا هرمون كيف بدهم بينكم سوق ويننا وعش قادر إنه سوري تعال ناخذه كيف بدهم بيسمحنا أن كو يلا saddex iyo afar saddex aan soo sheegnay hormonal hadda waxaan gelinaa surgical maxaa waaye vasectomy loo sameeyo vasectomy waa meel fast difference kan kafkaasina fast difference kan aan kala xira cut isbeermi laga soo qaaday testiska oo penis kala keenaa ma jirta biyaha waaye waxa waaye biyo ka dhici maaya baalkiisa ma waxay dhaayeen biyo wax ka dhaca malana qorigan biyo ka dhaca ma qala jiro wax ka dhaca mal xabad kuma jirto xabad ama laga soo xiray ma fahad vasectomy hooyadan maxaa lagu ay tubal ligation ayaa loo sameeyaa ama in laparoscopy lagu sameeyo ama laparotomy maxaa waa halkan ay dhahaan laparoscopy kan qalin yar oo laparoscopy hormartay meel dhac wala soo qala ama laparotomy ila ma doctor laparotomy waxa uu tafraa ka soo xira markii loo maxaa lagu surgical waxa lana waa irreversible erga loo yaqaan sterilization and irreversible meel sterilization waxa waa vasectomy waxa ka xirana fallopian tube waxa laga xiraa fast difference waxa uur maqaad uur qof miyir karo kana ka seenada before waa kana testiga ku soo qaadaan fast difference test ku soo bax in go'aan la heerno soo gala soo gal penis ku soo gala sama waaba ka jira bakad wax oo qof yiri kara maray wuxuu noqonaa miskiin ilaahay ma fahanad adiga laakiin wasiis kale oo shaqeysan waxiis yani erection ki wax dhan oo shaqeynaya laakiin bis bil aan noqonaa baal female sterilization waxa loo sameeyaa bilateral yani waxa la hayo bilateral salpingectomy or hysterectomy in loo sameeyo waxa la hayo hysterectomy waxa waaye waxa laga bixinaa minkii ama laga bixinaa ama in loo sameeyo bilateral tubal ligation in laga xiro tubeka laga xiro bilateral tubal ligation loo sameeyo tubeka laga xiraa oo bilaa toofay yeel socota waa inta aan dugushan ligation loo xiraa waxa loo isticmaalaa markii tubeka la jara absorbable and non absorbable sugar ah lagu xiri karaa aso haween ma inta aan ku sheegaba waa kana aydan tubal ligation loo sameeyo waa kana tubal ligation waa imaanaysa waa kala jaray soo waxay ku leeyihiin heblaay tubka laga xiro hadana waa loo wax la yiraahdo waa loo furay waa irreversible tobadan ajir si ufur waa kana waa jirta kaf waa kala jara tan gooni u tala waa kala jaraba wax la isku soo celi kara marka irreversible waxa Soomaaliya ku sheegtay heblaay tubada inta laga xiro hebla u furay waxaas been waa tubal xir lama furi karo waa irreversible waxa loo yaqaan marka salpingectomy waxa loo yaqaan emergency contraception wadil gudiyo emergency contraception waxa laga wadaa yani hooyadan uu waxay sameeyay intercourse sameeyay ayadoo rabin uur ay qaado ama ayadoo daawada isticmaalaan ama ayadoo condom isticmaalaan ama ayadoo fajaan ring meesha waa marka ayadoo carray ku imaad doctore iga soo gaaray ku dhahay marka waxa noo furan option ah in la sii daawo within 3 saac gudahood after intercourse kii la sina loo yaqaan levonorgestrel waa hal xabbo ku kooban levonorgestrel la sina and then 12 hour la sina mi fahanti yani hooyadan uur ina qaado ma rabin ama waxay aadina qaado contraception qaadaysa kliinigi wixii ma qaadan isbuucan odayga u yimid ayadoo la filayna ciyaarta isku dhacday maxaa dhacay marka waxay kula marka doctor ay emergency contraception raba waxaan iga gaarsiiyay aniga uurkii ina qaadan ka cabsana biyo gudaha kale mi fahanti adiga marka waxa u furan laba option ina hormoon siiyo laakiin la levonorgestrel hal xabbo ku gooyay qaabka isku imaadaba levonorgestrel hal xabbo ku imaada laakiin xabbo ku qaran laba xabbo xabbadaas ina xabbada kana 12 saac ku dibaasinaysa ama option labada ifra inaan si wax loo yaqaan coverkii aad taqaan IUD soo coverka qabanaysa waa most effective dib u diibo xaalada emergency most effective ah kan maxay la gudaha dhex gelinay dab uterus ka dhex gelina ha uur ma qaaday ha uur marabina qaado dhac waa gudaha u gelin gudaha maxaa dhacay haduu soo dhaco fertilizationki ta imaanaya uteruski maxaa waa implantation ma sameyn karo ninka dhex taagan meesha implantation ma dhici karo oo dhac sababta istaagayo implantation ma dhacayo marka dib u diiyo emergency yaa waa option ifra ina hormoon siiyo ama ina siinan hormoonka oo IUD oo contraceptive ina siiyo ama kaniini aan siiyo ama ina meesha u dhex gelin cover marka asaa marka most effective oo wuxuu joojinaa leedahay inaysan dhicin ma taqaanaa inaysan dhicin ninka la leeyahay ilaahay kuma soo diiday inaysan dhicin implantation meesha ka dhicin inta ay ku soo gabeynayna casharkeena contraception